السلام عليكم ورحمة الله. saxaabiga la yiraahdo Cabdiraxmaan bin Cawf ayaa markii uu ka soo haajiray magaalada Madiino waxa uu nabigu ka dhigay walaalo isaga iyo saxaabi kale oo la yiraahdo Sacad bin Rabiica. kadib Sacad wuxuu ahaa nin hanti leh, xaasas badanna waa uu qabay. waxa uu ku yiri walaalkiis Cabdiraxmaan bin Cawf, waxa aan ku siinayaa kala bar maalkayga, sidoo kale waxaan kaaga tanaasulayaa xaas ka mid ah xaasaskayga si aad u guursato. wuxuu ku yiri Cabdiraxmaan bin Cawf, ilaahay ha kuu barakeeyo maalkaaga iyo ehelkaaga, laakiin waxaad i tusisaa suuq, yacni i tusi wado ama dariiqo aan suuqa ku galo oo aan ku ganacsado. kadib waxaa la sheegaa saxaabiga Cabdiraxmaan bin Cawf wuxuu ka mid ahaa saxaabada nabiga ku wada tujaarada waaweyn ahaa ee hantida lahaa, hantidoodana ku bixi jiray ciidamadii muslimiinta iyo fuqaradii. waxaan ka faa'iideynaa qisadan gaaban, qofka inaad siiso maalin kasta kalluun diyaarsan ama malaay diyaarsan waxaa kaga wanaagsan oo kaga nacfi badan inaad tusisid oo aad bartid sida loo kalluumaysto.